wafdiga madaxweynaha Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ee maanta Beledweyne soo gaaray waxaa qayb ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabelle Marwe Canab Axmed Ciise wasiiro iyo xildhibaano Hirshabelle ka tirsan waxaana wafdiga madaxweyne Waare ku soo dhaweeyay gegida diyuuradaha Waasqariif ee Beledweyne maamulka gobolka iyo xubno ka mid ah qaybaha bulshada madaxweynaha Hirshabelle ayaa kormeeray goob loogu talagalay in lagu karantiilo dadka uu soo haleelo xanuunka COVID-19 iyo sidoo kale goobaha biyaha fatahaada ah laga xirayo ee ku yaala deegaanka Hilikiliye oo maamulka gobolka iyo guddiga gurmadka ganacsatada Beledweyne ay ku guuleysteen inay xakameeyaan fatahaad laga cabsi qabay in webiga Shabeelle halka uu ka sameeyo taa oo saameyn xoogan ku yeelan lahayd bulshada Beledweyne gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jayti Cismaan ayaa madaxweyne Waare iyo wafdigiisa waxa uu warbixin ka siiyay xaaladda Beledweyne iyo khatarta fatahaada laga cabsi qabo waxaan u jeedaa warbixinta guud madaxweyne gurmadka inoo yimid saas uu ahaa kabacdi dawladda dhexe waxa nooga yimid bahalahan hamba kan maxaa la yiraahdaa hal falayda inoo yimid haddana maanta waxa sidana lagu soo wargeliyay 6 falay sida tudhe maanta ee dagaysa oo aan rabno waajibka labaad annaga waxaan dhignay raaca koobaad raaca labaad raaca saddexaad oo kaasa raaca afaraad oo injineerku saaka bilaabay Hilikiliyaan ka dhignay biyo hal xabo oo ku soo fashilnay waxa weey waa qooqane way nooga soo adkaadeen kii labaad oo kale waa kana waa ku hortaagana kii saddexaadna waa kaas oo kii labaad baan hadda ku hortaaganahay kii koobaadana looga soo adkaaday kii labaad waa ku hortaaganahay kii saddexaad waa kaas waa fayowdah waa noo sidiisii kii afraad saaka injineerkii ay soo dhigeen dee lamaba gaarinba biyo horta saasaan uga adkaanay haddaad ciddii qof kastoo shaqeeyaana abaalmarin uu leeyahay qofkii si xun u shaqeeyaana cinqaab uu leeyahay qofkii si fiican u shaqeeyaana abaalmarin iyo baramiyo uu leeyahay midaadna marinaada laga sugayaa maanta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Soomaalida meesha taagan iyo kuwa maqan ay ogaadaan waxa saan loogu dheelay oo intaas oo buura laga dhaxwaday waa nin beerti madaxweynaha waxa gadaashan ku yaal waartaa waa geetamir nin waxaan waa nin baa ogolaaday leenta hadaa ku soo aadaan fujiya ku riday biyaha ku riday ku xiran waana ka meesha beerta intaas la eg ee aad aragtaan la sii falay intana laga falay oo kaliya u dhaxyaalo oo kan u dhaxyaalo oo kaas u dhaxyaalo ninkaana iskala lagu war ku socda waxaan haynaa ma dhig saaka shaqaale intuu isugu yeeray 4 neef oo aryana loo soo qabto bariisna loo soo qabto shaqaalaha shaqeynaa ma sha Allah ganacsatada lacagta haysiyo kuwa bixinaana kamid ma ninkaas oo tabaal marin gaar oo leeyahay shahaado sharaf ma sha Allah mudan yahay shahaado sharaf la siiyo sababtu tahay qofkii wuxuu ka shaqeynaa waa in la sheego qofka wax fiican ka shaqeynaa waa in la sheego nimanka ganacsatada guddiga sanadkii horna biyo baxada daadihinay waxay noola shaqeeyeen ilaa xad si aad u macquula waxa la yiri waxadan adigu hayn hooyadaaba ha haydee haybis bay ka rabaan inaad weydiiso oo aad tiraahdo hooyo meel wax halka yiri ya intaas waa iska jirtay inta yari waa iska jirtay laakiin ilaahay haddaan ka baqayo waa nala shaqeeyay intaasina waa jirto wax aadami ka haayo ayaaba noocaas Soomaa balka wax ma go'aansan kartid fiiri marka aniga askariga jiri askariga waajibku markuu maalin leeyahay waxa la leeyahay 72 saac gudahooda waajib kala siinaya xilliga uu baxayo imkaaniyaadkiisa wax dhan waa loo dhameystiraa xilliga uu dhaqaaqa uga maxirna taliya noocaas aan sugaynaa ma yeelin laakiin waxay noola shaqeeyeen qof shacab oo intay qof la shaqeeyay mar haddaan is amray oo dad simanahay jeebkooda iyo dadaalkooda nin waxaan u qaban jiray aad inay u baqayaan ayagoo hareereen taagna shijaad qabanayaan nimankii ruuxan tahay meelaha inay ka tageen joogaan ma kala intaasina waa kafta madaxweynaha Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Waare oo gabagabadii hadlay ayaa amaanay doorka waxqabad ee maamulka waxa uu dhinaca kala digniin u jeediyay guddiga gurmadka ganacsatada Beledweyne run ahaantii wuxuu ahay xafiiska ra'iisul wasaaraha gaar ahaan dawladda dhexe doorka ay ku leeyihiin wuxuu ahay mashruucan runtii oo dadaalka moralka iyo dhiirigelinta gudoomiyuhu ka hadlay marka laga soo tago naqshada lagu howlgalayo oo injineeradu ay ka shaqeynayaan
annagu dawladda hirshabeelle haddaan nahay dawlad goboleedka federaalku wuxuu u shaqeeyaa wixii naga awood bata inaan dawladda inaan micin aan weydiisano dawladda annagaa weydiisanay inaan farsamo ahaan aanan ku filnayn in muxuu ahay webiga hadda aan xirno injineeraa naloo soo diray saraakiilaa naloo soo diray madaxaa naloo soo diray wasiiraa naloo soo diray in micno kale loo fasiro oo la siyaasaday aadaan uga xumahay taas waqti kale aan si fiican uga hadli doonaa waxay injineeradan iyo mas'uuliyiintan halkaan u joogaan kaliya biyahan in la xiran maaha xalka waara oo in arintaanu ay mataqaana ay ku dhamaan doontane inay ficilkii ayagoo u jooga naqshadeeyaan waxaa xoogaa ganacsatada shaqo fiican ay qabteen ammaanay muujiyeen waa la wada sheegay dalka iyo dibaddiisa laakiin guddoomiye hal shay aan kuu sheegaa ganacsatada lacagta loo dhiibay waa lacag dadka hirshabeelle loogu talagalay ammaana loogu dhiibay lacag muxuu ahay aad mahmahdaadi maxay ahayd hooyadaaba weydiisay kaa rabtaa ma weydiinaysid hadda tu kalaa soo socota ayagaan u dhiibaynaa meel kale geyn mayno laakiin annaguna meeshay ku baxday inaan la soconaan rabnaa amarkaaday ku shaqaynayaan injineerada taladooday ku shaqaynayaan hawshii la qabanahay ku shaqaynayaan haddaysan intaas aysan samayn karin bannaanka ha ka istaagaano wanaaggooda iyo fiicnidooda iyo mataqaanaa quruxdooda meel kale ayay ka anfacaysaa laakiin hawshaanu waa hawl u baahan garbaha in la isqabsado haddaan garbaha la isqabsanayn oon talada annaguba sow muxuu ahay mas'uuliyaddii ammaanada sow lacagta ayaga kuma wareejin maxaa diidaa ayaguna in la tashado inay diidaan maxaa diidaa inay muxuu ahay injineerada taladooda raacaan maxaa diidaa in howlgalka guddoomiyaha gobolka inay ku shaqeeyaan arrintaas guddiga dhammaan ka wada shiri doonaa meeshii ay markaana ay tagtana waa arkaynaa